madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isna luuqadiisii ku aadanay Gaza isbedel weyn uu ku yimid kadib markii uu sheegay in uu fursad siinayo dalalka Carabta sida ay qorayso warbaahinta inay arrimahani xal ka gaaraan markan wuxuu leeyahay arrintii ku saabsanayd in dagaalka Gaza dib loo bilaabo aniga Gaza aan gato ama Gaza aan la wareego mar wuxuu yiri Gaza waan gadanayaa markii uu dambeysay la weydiiyay Gaza waa gadanaysaa Allah maxaa ka jiro wuxuu leeyahay ma gadanayo wax la gato meesha ma yaalaan kula meeshaas meel dagaal burburi waay laakiin waxaan rabaa inaan ka dhigo meel qurux badan oo dalxiis oo loo soo siyaaro tago oo indhuhu jeclaystaan oo maalgashi xoog badan ayaan gelinayaa buu ku leeyahay macnaha bariga dhaxdhan ay anfacaysaa saas uu leeyahay bariga dhaxdhan ay meesha anfici doontaa dhaqaalayaan batroolaa ku yaala diamond ay noqonaysaa diamond warmeesha dad iskale maada iskale markay diamond noqonayso diamond bay noqonaysaa haday noqoto dad iskale u noqonaysaa marka hadii dhul dadkii lahaa xoog loo sheegto ama dadkii lahaa maartay la isku day in laga wareejiyo oday maad waxay rabtaan ay sameynaysaa ay ku hadlaysaa hadda saaka wuxuu leeyahay wadamada Carabta fursad siinaya inay iyaga soo diyaariyaan xal looga gudbi karo xaaladan adag Israa'iil iyo maartay Hamas u dhaxayso hadii xal la helo dalalkan ay xal macquul ah qaadan karna ay keenaan waxaan diyaar u nahay inaan dhageysano marka albaabkii fursadda ayaan banaynaya maadaama dalalka qaar badan saaxiib aan lanahay arrintan waxaa keenaa mowqif ay qaateen dalalka Carabta qaar badan oo kamid ah inkastoo dalka Jordan aad loogu dhaleeceeyay cambaareen weyn ay ka soo gaartay gudaha iyo banaanka dalalka muslimiinta ba kulankii uu la qaatay Trump isagoo wali Trump uu ku adkeysanay inuu reer Gaza rarayo waliba waxa yaab lahayd hadalkii boqor Cabdallah ah 2,000 oo reer Gaza qaadanaya ee caruurta xanuunsan uu yiri ha xanuunsan ha caafimaad qabaan Trump markuu reer Gaza warara ma ilmihi xanuunsan bisoo hore u xanuunsanayeen reer Gaza dabcan marka 2,000 inaad dhahdo xilliga Trump uu qaadana aad baa loo cambaarayay laakiin dawladda Masar gaar ahaan madaxweynaheeda Abdel Fattah al-Sisi ayaa mowqif aan laga filayn gaaray sida aan warbixinteena hore ku darnay Sisi wuxuu ku adkaystay inuu Trump la kulmeynin ilaa inta oo miiska u saaran tahay hadalka ah maaragtay reer Gaza wararaya iyo Gazana la wareegayo hadalkaas intuu meesha lama kulmayo leeyahay macnaha mowqifkaas wax weyn oo Trump leeyahay Mohammed bin Salman oo isagana hal mar 90% ee warbaahintii Sacuudiga iyo wixii oo dhan olole Israa'iil ka soo horjeeda ka bilaabatay ee mowqifkiisa Gaza inay iska gorgortamaynin ayna ogolaan doon reer Gaza in hortooda looga maarta xaalufiyo xoog looga saaro deegaankooda inay aqbali doonin go'aamadaas wax weyn